عركلك تتقي مايو أسي شرفت إذا مدن أنيو عيركو تورسن مايو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن أو نكسن داوداش إذا قيمة هي قدر أنت مدن أصحابتي إذا كحرن سمدن ميديا يبيش عبد الرزاق شيني مركو هراء وحنا الله يسود هذا مركو حكتا وحقرب كيف فريا عبد الناصر من الرنيارة وكل قن أو كم من الرنيارة هذا ما ورك من الرجح بور أنت أنا نقول جرين برنامج كنن يو وربحين تنمانت أنا نديش قد من دون مركو هراء حدية تمر كور صب وقطي channel كسمدن ميديا هاي لون الناس وذكر جريسيت مقال كان الله جريسيت سين الشيء جريسوا أصحاب كانوا جارو مركو لبعض عبد الناصر والله الحمد لله هاي كسدو سمدن ميديا يبيش عبد الرزاق شيني أديكو بالمركو هراء مقعاكو بالله والله سودو عبد الرزاق شيني وسلامت وكا قادنا sidoo kale ku salaamaya adiga iyo bahdaada bada TV-ga Sanadoon iyo عبد الرزاق شيني rabankaaga aad iyo aad baan soo dhaweynay walaal asxaabtaadana waxaan leeyahay ku xiran suul ku soo dhawaada oo soo dhaweey ku soo maamulada okay عبد الناصر waxaad ka mid tahay dhalinyarada maamulka magaalada dhagax buur waxaad tahay nin muruqmaal ah oo xoogiisa ku shaqeysta bal waxaad joogtaa meherad alla aamin la yiraahdo oo habeenkii cuntooyinka sameeysa cashada sameeysa bal haddaad warbixin inaga siiso maxay kaga duwantaas dhihi kartaa adiga meheradaha kale ay dhalinyarada inta badan maamulka dhagax buur ay u soo cashtagaan bal adi fikir ahaantaada maxay kugu doorteen bay yaa isleedahay wallahi taas waa su'aal aad u fiican oo qurux badan waad maasantahay walaal waxa weey sababta ay ku doorteen ama aan kaga duwanaan karo wallahi waa tu rabbi weeye laakiin hadii ay shacabku mar walba iyaga waan mahad celinay maasayn iyagana dartood baan horumarka aan gaaray iyo wanaagga iyo shaqadii kala socotay iyaga dartood baan ku gaaray oo dhalinyaradaas maanta hadii aan shoogi lahayn lama arkeen badee waad aragtay habeenkii dhan saas oo camrata gelika hore oo dhan waana u bixi dalka weeye shabaab daayar midhan weeye masha Allah alxamdulillah waan soo dhaweynaya mar walba dhalinyarada deegaanka guud ahaan kuwa gaar ahaan kuwa dhagax buur laakiin sida ay ugu jeclaadeen meheradaha kale ay kaga duwan yihiin wallahi billahi iyaga la weydiiyay ayaa fiicnaan lahayd balse waxaan leeyahay nimco rabbi uu iga siiyo weeyaan iyo asxaan iyo isfahan iyo isfahan iyo waxa weeyaan macnaha jeclaysta baa malaynaya dad la yiraahdo bal عبد الناصر xirfadan cunto karinta inta badan ragga Soomaaliyeed aad bay ugu yartahay waxayna u muuqataa shaqooyin u baahan dadku inay ka sinaadaan ay wada qabtaan adi dhagax buur umbaad ka howlgashay oo ku bilowday shaqadan mise goobo kale ka shaqaysan jirto عبد الرزاق ما سنتهاي dhagax buur meherad aan leeyahay mid aan wax khaas u leeyahay inaan yagleelo baan dhagax buur ka bilaabay laakiin shaqo hodeel intaas ku soo leekaaday baa oran runtii waayo waa ku dhex koray anoo yar oo ciyaalsan inta dhagax buur uga tagay magaalooyinka wadamada Soomaalida u dhex socon jiray magaalooyinka Soomaalida beeladu uga shaqeynayay waa anigoo ciyaal baan dhagax buur yimid anoo yar oo dhowr iyo 20 oo ka tagay magaalada anoo afar ciyaal oo taban imid magaalada saddex ciyaal midna halkan ku dhashay afar ciyaalkaaba jooga taasoo dhan xagaas xumaana wax shaqo kale ma qabano weligay hudheelba ka shaqeynay Djibouti xataa ka shaqeeyay ragii shaqada igu soo ababiyay weeraan anoo yar waxa ka mid ah ragada hudheel kula jibjiga Cabdiraxmaan Axmed oo ku magac dheer gaagaale waxa ka mid ah Cabdullaahi Axmed oo wajaale hudheel ku haystay isaguna qaybtii labaad wargeysa ka soo raray tii koobaadna harta sheekhay ilaa hadda weli ka sii shadan tahay asal restaurant baa jirto hargeysa ka shaqeey jiray Soomaaliland hargeysa baa ka shaqeey jiray waaheen oo ka soo horjeeda mise jaamaca hargeysa ayaa ka shaqeynay waxa ka shaqeey jiray Boosaaso waxa ka shaqeynay Garowe waxa ka shaqeey Qarno gaalka ay xataa ka shaqeeyay
marka intaasoo dhan saas ugu soo dhex jiray marka halka aan xaggan u soo noqday isbeddelkii kadib waxay noqotay fursad farsamo kale ma aqoon oo taa iyadoo bawti adduunka la moodan tiina markii ay walba aan waxay noqotay inaad hawl ku dhaqaajiso hawl yaa hantimooda nool bale inaad ku dhaqaajiso bay noqotay tiina maan arag goorihii hore oo dhan markii dambe halkan aan degan wada Cabdirasaaq reer aad ugu duceeyo khayr Allah siiyo iyagii waalidiintoodaba iyo badkooda baa la barkay u duceeyay halka igu soo dhaweeyo halka aan ku tegay waan bilaabay marka alxamdulillah rabbil caalamiin aad iyo aad baan u wanaagsanay ma sha Allah okay Cabdinaasir intaad shaqadan ku guda jirtay waxyaabihii kugu la yaab badnaa intaad ka shaqeynaysay shaqadan maxaa kamid ah ودلadu wallahi bilaa inta ka soo shaqeynay waxyaabaha yaabka faraha badan ee saasoo loo sii daba ma ma garanayo laakiin waxa weeyaan kulay waa iska nolosha bulshada magaalada joogga kala weyn maharada hudaalka cuntada moogtahay dadka bulshada dhex socota suuqa dhex socota qaarba nooc weyn moogtahay waa iska saasoo kale maharada markaad joogto gaar ahaan maharada cuntada marka wax aan aad u la yaabo ma xasuustaa ilaa imka caadi carakale ka tagi maayo asiyo sharaftayda mudan anigu cayd ku doorsan اوكي والله marka ku soo dhow Samadan Media page ka Cabdirasaaq Shiine adigu magaca ku bilaabaya bismillaahir rahmaan marka koowaad waan ku soo dhaweynaya magacaygu Nasirdiin Beenax Jibriil dhaanaystayda ku magac dheer Casaanyo okay Casaanyo caaw waxaan ku kulannay oo isugu imaanay maxaradan inta badan bulshooyinka ku dhaqan magaalada Yaxbuur ay u soo caashtagaan ay isugu yimaadaan ninka dhalinyarada ah ee shaqaysanaya uu iska leeyahay bal ka waran meheradaha kale meheradan maxay ugu duwan tahay meheradan horta wiilka dhalinyarada hal abuur fiican ku soo kordhiyay magaalada habeenkii xilliga doonto hada timaado cashada waad ka helaysaa marka meherada aad bay u cashay macaan tahay horta dhalinyarto dhan way korreeyaan cuntadiisa waa la isku wada raacay marka wallaahi waxaan leeyahay wiilka dadaalkaaga halka ka sii wad harajo dhigin insha Allah waxaan rajeynayaa meesha meel ka weyn inuu magaalada u furo bal ka waran waxaan u maleynayaa in habeenkii adiga ku dhada aad u timaadid mise caawa ma ku kulannay adigu wallaahi horta waan ku xiranahay adigu habeenkii waan imaadaa inta badan wiilka horta dhalinyarta magaaladuna aad buu timaadaa anna waxaana dadka ku xiran markasta inta badan yimaada habeenkii horta wallaahi cashada Cabdinaasir horta habeen walba waan ka cunaa waana ku xiranahay habeen walbana macmiilkiisa anahay cashadiisu ma xuma aad ayuu macaan tahay dhalinyarada magaalada dhan boqolkiiba boqol aad baa ninkan looga cunaa waana la wada wataa isagoo meel laami iskaga yaala oo aad cashadiisu macaan tahay hoteelada magaalada ugu caansan inuu ka cashi macaan yahay dhalinyarada dhan wadoogiin hoteelada meel walba isaga looga yimaadaa horta Cabdinaasir cashadiisu aad bay u fiican tahay ilaahay ha u barakeeyaan dhiilaano Cabdinaasir dadaalkiisa halka ka sii wado waqti hore waxaa jirtay halkan oo kale meel yar halkaas isaga iyo wiil kale si shaqaysan jiray oo jaangala dhaho xasla shaqaystaan Maxamed isaga iyo wiilkii kale wiilkii isku dhaceen uu yar dabeecad xumaa marka isku dhaceen wiilkii kaliya marka meel furtay isku dib sameeyay Cabdinaasir markuu isku digi sameeyay halkan uu soo dagay markuu halkan soo dagay bas kadib way maashi baa u kala kacday oo u macaanaatay markuu u macaanaatay Cabdinaasir noo qaad magaalada maanta cirifka la garanaya Cabdinaasir ilkaas oo la garanaya marka wallaahi cashadiisu waa ma sha Allah waan dhilaa ninkan dhalinyarada magaalada dhan way wada taandila waxaad ka dhawaajisay in aad ku xiranta adiga oo habeenkii aad soo caashtagto bal maxaa kamid ah waxyaabaha uu kugu soo jeedinaya cashadiisa wallaahi cashadiisu waxaa kamid ah casho duban buu siinaya oo aad ay kaaga dubaya ka taranta suqaar aan la arag buu ku daray oo hoteelada ku dirin cuntadiisu wallaahi way macaan tahay boqolkiiba boqol inta waan dhila noocuuna cuntayna ma jirto carakale ka tagi maayo asiyo sharaftayda mudan anigu cayd ku doorsan maayo
yaan ku salaamaya cabdinaas adoo halkan ka faa'iideysanaya cid aad is leedahay aad salaantid ama aad fariin aad u gudbisid haddii noqon lahayd bulshada haddii noqon lahayd waalidka haddii noqon lahayd eheladaada adiga halkan waxaan ka salaami lahaa abbaha iyo hooyada marka ugu horeysa salaamaya walaaladii baan salaamaya waxaan salaamayaa walaaladii iga kala fog oo kala ah deeq maxamed saafi iyo rabiic oo isna nairobi jooga iyo boosas kala jooga cabdi cumar oo jarmalka jooga dhammaan inta maqalkayga mataqaana ayaan aad u salaamaya walaal guud ahaan shacibka deegaanka oo dhan iyo ummadda islaamka caalamka ka daawanaysa oo dhan waxaan leeyahay salaamu allaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu